warbixintan ayaa intii ku guda jirna waxaan ku soo bandhigi doonaa dhagaraha dawladda Soomaaliya ay u maleegayso Soomaaliya iyo waliba processkii loo maray joojinta markabkii xoolaha siday ee reer Somaliland kaasi oo ugu dambeyn la dejiyay. waxaynu halkan ku eegi doonaa qaybaha kala duwan ee ay soo martay xayiraadani ciddii ka dambeysay waqtiga ay bilaameen ujeedooyinkooda cidda xulafada ku ahayd iyo cidda ka dambeysay fikirkani. ugu horreyn haddii warbixinteena bilowno waxaynu ka soo bilaabi doonaa halkii ugu horeysay ee ka soo bilaamay iyo waliba halkii ka soo maxay fikirka hakinta xoolaha Somaliland ee lagu hakiyay laguna xayiray dalkaasi Sacuudi Arabiya. madaxweynaha maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa isagoo adeegsanaya wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo qaarkoodna ka soo galaan maamulka Puntland oo kala wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka kalluumaysiga Cabdullaahi Bidhaan Warsame, wasiir dowlaha maaliyadda Maxamuud Xayir Ibraahim, wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa ka dalbaday wasiirka xanaanada xoolaha ee dawladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Xuseen Badni inuu joojiyo xoolaha ka dhoofaya dekedda magaalada Berbera oo ah kaliya xoolaha deegaanada Soomaalidu ka dhoofaan, isla markaasna haysta maxjar iyo laabka caafimaad ee xoolaha ugu wanaagsan oo marka uu xoolaha u joojiyeen ay siin doonaan lacag dhan $500,000 iyadoo uu ujeedadu tahay sidii dekedda Boosaaso looga dhoofin lahaa xoolaha. wasiir Badni oo aqbalay arrintaasi ayaa u howlgalay sidii xoolaha ku soo xayiri lahaa isla markaasna uu xoolaha laftigooda uga qaadi lahaa lacag ganacsatada leh. wasiir Badni oo la hadlay dhiggiisa Sacuudiga isla markaasna martiqaad rasmi ah ka helay ayaa ka haystay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo labadooduba Somaliland ka soo jeeda, isagoo ka dhaadhicay in haddii xoolaha la soo xidho ay lacagta wada qaybsan doonaan. 17 bishii 2019 ayay la kulmeen wasiirka wasaaradda sixada iyo beeraha ee dalka Sacuudi Arabiya waxayna ka dalbadeen xoolaha dekedda Berbera ka soo dhoofaya warqadda caafimaadka ee Soomaaliya lagu xidho isla markaasna iyagu wixii hadda ka dambeeya bixin doona. wasiirka sixada iyo beeraha ee Sacuudiga waxa uu ku yidhi sida ay la xogagaal inoo xaqiijiyeen maba xukuntaan Berbera ee si xoolihiisa sideed ku siin kartaan shahaadada caafimaadka, balse mas'uuliyiintan ayaa ku adkaystay markii ay Muqdisho ku soo noqdeen. wasiirka wasaaradda sixada iyo beeraha ee dalka Sacuudiga shuruudo adag ayaa ugu soo diray kuna xidhay in kaliya shuruudahaasi ay fuliyaan lagu xidhi doono xoolaha Berbera, balse wasiir Badniga Muqdisho oo ismaqi ku jira ayaa diray warqad uu sheegayo inay buuxiyeen dhammaanba shuruudahaasi. kadib wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya waxa uu sameeyay isbahaysi ka kooban siyaasiyiin iyo ganacsato reer Somaliland sida uu markuu buuq u dhaco ay u difaacaan isla markaasna lacagaha ganacsatada reer Somaliland laga qaado uga soo qaadi lahaayeen dhexna ay uga noqon lahaayeen. waxaana ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guleed, xildhibaan Biixi Iimaan Cige oo iyagu u qaabilsan dhanka khalkhalinta siyaasiyiinta reer Somaliland ee xamar jooga iyo waliba dalka Somaliland u jawaabistiisa, iyo Khadar Beele oo hore u ahaa wakiilka Juba Airways haddana wakiilka Soomaaliya Ethiopian Airlines, isla markaasna loo xirsaaray inuu jiddo u geeyo shahaadada caafimaadka ee foojariga ee maamulka xamar ay soo qorteen isla markaasna uu lacag kaga soo qaado ganacsatada reer Somaliland halkaasi ku sugan. waxaa kaloo wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya ka codsaday gudoomiyaha golaha shacabka oo ah qofkii markii horeba wasiirnimadiisa keenay inuu mooshinada iyo golaha ka difaaco isla markaasna lacagta wax ka sii doono ka soo xarootay dhoofinta xoolaha. gudoomiyaha oo durba si xeeladaysan u baajiyay mooshin laga waday wasiirka oo hormuud ka ahaayeen xildhibaanada reer Somaliland ee u shaqo tagay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka dhaqaaqay dekedda Berbera markabka Alfaad ee sidii ari dhan 19,633 neef oo ka tegay dekedda magaalada Berbera 8 bishii 7 2019. wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya waxa uu ka horeysiiyay markabka warqada ku xayirayo waxaanu jiddo u diray Khadar Beele isagoo warqadaasi nuqul ka mid ah u dhiibay ganacsatada lacagna kaga dalbaday ganacsatada, balse ganacsatada oo diiday iyo markabkii oo degi waayay. kadib kusimaha safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga ayaa qoray warqad lagu dejinayo xoolaha, balse markuu maqlay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya waxa uu qoray warqad ku sheegay in shuruudaha kuwii hore yihiin xoolaha oo aan la dejin karin isla markaasna inaan la tixgelin warqadda safaaradda. markii ay halkaasi marisay hawsha xoolo dhoofinta ee Somaliland ayaa waxaa propaganda soo fidiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo isagu xafiiskiisa laga soo fidinayay propaganda lagu sheegayo inuu sii daayay xoolihii ku xayirnaa dalkaasi Sacuudi Arabiya, taasi oo noqotay been cad oo shacabka uu ka iibiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka. ugu dambeyn muran kadib dheer 18 bishii 7 2019 ayaa xoolihii lagu sii daayay damaanadda boqorka Sacuudiga. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa mar kale waxa uu shalay tolo warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay sii daysay, balse ra'iisul wasaare Mahdi Khadar ayaa qofkii ugu awoodda badnaa ee diidanaa in la dejiyo xoolaha, waxaana isburiyay labada hadal ee ka soo kala baxay ra'iisul wasaare iyo xafiiskiisa oo laba jeer lagu kala sheegay
mar uu isagu sheegay in la sii daayay iyo mar xafiiskiisa laga sheegay inuu isagu sii daayay balse hadallada been abuurka cada oo bulshadu dareemayso ayaa noqday kuwa ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu taageero kaga doonayo shacabka reer Somaliland ee u shaqo tagay magaalada Muqdisho. balse ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed waxa uu been ka sheegay cidda sii deysay xoolahani, isagoo ra'iisul wasaare ku-xigeenku dagaalka ugu dheeraa uu la galay sidaan loo sii deynin xoolahani si uu uga helo faa'iidada xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya ee horkacayay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya ee heshiiska la galay maamulka Puntland si loo curyaamiyo dhaqaalaha dekedda magaalada Berbera. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa isagu geed gaaban iyo ku dheerba u fuulay sidii xoolahani loo hakin lahaa, balse ganacsatada reer Somaliland ayaa warqadahan oo ah kuwa cadeymo ah waxay u qoreen dowladda Sacuudi Arabiya waxayna kaga codsadeen in xoolahooda loo sii daayo. warqadan waa isfahamkii hore uu goobjooga ka ahaa wasiirka xanaanada Soomaaliya iyo wasiirka saxada ee beeraha Sacuudi Arabiya ee laga gaaray arrimaha dhoofinta xoolaha. warqadahan kalena waa kuwii bangiga Islaamka kaga codsanayay Sacuudiga in la sii daayo xoolahooda, balse Sacuudiga oo tixgelinaya dhaqaalaha ganacsatadiisa soo geliyeen xoolahani iyo weliba codsiga bangiga Islaamka kadib waxa uu go'aansaday in xayiraadda laga qaado markabkani, isagoo dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenkeedu mar kale fidiyay propaganda ku sheegay inuu sii daayay. ugu dambeynna wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya oo ka qaatay Puntland lacag dhan $300,000 iyadoo $200,000 uga harsan yihiin waxa uu isku dayi doonaa si kasta oo Somaliland xoolaheeda u hor istaagi lahaa. wasiirka ayaana soo xaadiray kulankii khamiisle ahaa ee shalay ee 18 bisha 7 2019 kadib markii uu ogaaday in wasiiro kale oo reer Somaliland ay ka xanaaqeen arrintaasi, balse xubnahan xildhibaanada iyo wasiirada iskugu jira ee Somaliland ka soo jeeda ayaa iyagu kaliya ta u dan lahaa inay helaan lacagyogaasi. Somaliland oo dekedda Berbera laba markab oo kale ka tageen ayaa waxa la filayaa in mar kale dowladda Soomaaliya dagaal baaxad ku soo qaado maraakiibtaasi iyagoo adeegsan doona mar kale propagandooyin kala duwan oo dowladda Sacuudi Arabiya u diibaan.